السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا أصحابتا قيمة يقايها بدنو ومركل يماشيني كسلي حبيبك صلى الله عليه وسلم. ما أنتو حكا هذا دونا قابك لوها بيو أما لوها جاجيو مسكحة بني آدم مدن انتها مسكح دالن حسوس ياري يولي بإن هذا وح جار ديرة دي سالكة ما أبا هاي هب سهلان ودوها جاجي كرتيد مسكح هذا iyo waliba xasuusaha ma isweydiisay maxaan sameyn karaa si aan u noqdo qof u hagaagsan ama u samaysan maskaxdiisuna ay tahay mid xoog leh oo awood leh oo xasuusta iyo qaban karta waliba waxyaabaha waqti la soo dhaaf. maanta waxaan kula wadaagi doonaa 7 hab oo muhiim ah oo sahlan oo maskaxdaada dib ugu dhisi kartid ama aad maskaxdaada ku soo cesho kartid. hadda 7dan hab ku dhaqantid oo dhageysatid waxaan hubaa inaad u dhismi doontid maskax ahaan, jir ahaan iyo fikir ahaan intaba. mar haday maskaxdaada isbedeshana bal ogow waxa isbedelaya jirkaada iyo qaabkaad u shaqeynaysid intaba. aan bilaawno safarkeena qaabka maskaxda loo nadiifiyo loogana saaro culeysyada iyo inaysan waxba qaban karin. runaantii maskaxdeena waa furaha guusha iyo nolosheena intaba. maskaxdeena waa sida jirka oo kale oo u baahan daryeel, caafimaad iyo waliba tababar joogto ah. maskaxdeena haddii aan siino daryeel iyo tababar joogto ah waxay gaaraysaa ay u shaqeyso qaabka ugu wanaagsan oo qof maskaxdiisa u shaqeydo iyo heerka ugu sareeya ee wax qabad iyo caafimaad intaba. ma ka mid tahay ardada dhalinyarada ah ama dhalinyarada mashquulsan isla markaana u baahan inay soo saaraan xirfadahooda iyo xifdintooda maskax ahaaneed? 7 habaan kula wadaagi doonaa oo run ahaantii aniga wax badan iga caawiday, qayb badan aan tijaabiyay, qaybna aan weli wado oona isleeyahay waad ku faa'iidi doontiin. fadlan nala joog. anigu waxaan xasantiin bade channelkuna waa xasantiin bade. fadlan hadaa nagu cusubtaan nagu soo biir hadaa hore nala joogtana farxad bay noo tahay. like noo saar. aan ku bilownay marka hore horta go'aanso qaabkii aad maskaxdaada u bedeli lahayd fikirkaada iyo xifdintaadana aad u siyaadin lahayd. midda koowaad haddii aan ku bilowno xaqiiji oo hubi hurdadaada tayadeeda iyo qaabka aad u hurdaysid iyo inta saacadood u hurdaysid. midda kale waxaa bi'ida oo soo celiya waxaa la yidhaha maskaxda inay nasato waxaa weeyaan hurdada. waxaa kaloo jira istikfaarta sida nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan ilaahayna oo quraankiisa ku sheegay. marka ka bilow hurdadaada oo hubi in aad seexatid waqti kugu filan. haddii aad hubisid run ahaanta waqti kugu filan inaad seexatay waxaa ku hagaagi doona dhammaan qaab ahaan maskaxdaadu waxay u dhismi doontaa sidii geed curdina oo hadda soo baxay. maskaxduna waxay u baahan tahay hurdo tayo leh si ay u xasuusato waxyaabihii aad baratay iyo waxyaabihii aad soo dhaaftay loona dibna loogu cusboonaysiiyo maskaxdu markii ay seexato iyo in la nadiifiyo sunta maskaxda. hurdadu waa shay aad u muhiima bini aadamkana u muhiima marka ay timaado shaqada maskaxda, gaar ahaanba qofka bini aadamka. aan ku weydiiyay adigu meeqa saacadood ayaad hurdaa? bal xisaabi oo dib isugu laabo. midda labaad ayaa ah ku quudi maskaxdaada cunto nafaqo leh. cuntada nafaqada leh sida jirka ay wax ugu tarto ayay maskaxdaadana wax ugu tartaa. waqtiyada qaar waxaa laga yaabaa inaad adoo isku buuqsan aadan haddana cunin cunto nafaqo leh. waxaan kugula talinayaa inaad cuntid cunto nafaqo leh oon weliba cunno cunto nafaqo leh si maskaxdeenu ay u hesho tayo ahaan iyo caafimaad ahaanba ay kor ugu siyaado. markasta oo jirkaada caafimaad helo maskaxdaaduna caafimaad bay helaysaa. waxaana kow ka ah inaad isticmaashid hurdo badan oo kugu filan. waxyaabaha dilaya maskaxda sida inaad waqti badan ku qaadid social media oo adabteed uga dhigtid social media iska ilaali. intaad social media ku xiri lahayd maskaxdaada waxaa fiican inaad ku xirtid waxyaaba adiga ku anfacaya adduunya aakhiraba sida inaad buugaag akhridid, inaad quraanka akhridid oo kale. ma jiro wax ka fiican dhisitaanka jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed ee noloshaada adiga naftaada. haddaba ku baraarug inaad maskaxdaada dhistid si uu jirkaada dhan u dhismo. haddii maskaxda dhisantana dabcan nolosha inta soo hartana way dhismaysaa, sababtoo ah meesha wax laga fikiraa ama wax laga soo guuriyaa waa maskaxda. aan kula wadaago mid ka mid a waxyaabaha ugu nafaqada badan ama ugu maskaxda ugu fiican ee aduma jeceshahay kalluunka la yidhaha omega 3 kaas ay ka buuxaan waxyaabaha u fiican maskaxda. qaybta saddexaad ayaa ah ama habka saddexaad ayaa ah jimicsiga maalinlaha ah. jimicsiga maalinlaha ah wuxuu kaa caawin karaa ama uu husin karaa in aad maskaxaanya jir ahaanba u dhisantid una dhiiranaan u helaan oo jirkaadu dhiiranaan u helo. dhab ahaantii maalintii aan sameeyo jimicsi iyo maalintii aan jiifo wax isu dhow ma ahan. maalintaasoo dhan waan daalanahay haddaana jimicsan, laakiin maalinkai aan jimicsi sameeyo 30 daqiiqaba allah ka dhigay aad baan uga firfircoonaa maalmaha kale. that is why aan idinla wadaagayo sheekadan ama
arrintan muhiimta qof walba lagama helo inuu ku siiyo hantidiisa iyo aqoontiisa laakiin qof walba inuu kuu sheekeeyo waa laga helo aniguse hanti kale ma lihi laakiinse waxaan idinku dayayaa ama isku dayaya inaan siiyo wixii anigu aan soo testigareeyay ama aan soo jirabay goormay kuugu dambeysay inaad ordo ama socod boob socoto ama ruclayso amaba aad dabaalatid bal nala wadaag ayada midda afaraad ayaa ah ku dhaq maskaxdaada fikir iyo xasuuso hore sababtoo ah xasuusaha hore waxay keenaan xasuuso cusub taasna anaa jitaabiyey haddii aad 2 maado 3 maadaba samaysid inaad istighfaarta badidid inaad rasuulka salligiisa badid sallallahu alayhi wasallam iyo inaad exercise gareydid midda afraad oo inaad hurdo fiican seexatid waxaan hubaa inaad hagaagayso oo weliba wax ku celi karana aysan jirin inaad noqoto qof maskax ahaan xooggan waxay ka mid tahay inaad tahay qof si walba u xooggan inaad maskax ahaan xoogganaatana lama arki karo laakiin inaad awood ahaan xoogganaatid waa la arki karaa maskaxdaada ku xasili salliga iyo istighfaarta intaba aan ku weydiiyo midda afraad maxay tahay waxyaabo ugu badan ood maalin kasta ku mashquulidid adigu maskaxdaada nala wadaag ayadana maskax qaybta shanaad ama stepka shanaad ayaa ah ku tababar maskaxdaada jimicsi ugu waxaa jira dad jimicsi jirka jira waxaa jira jimicsi maskaxeed maskaxdaada ku mashquuli waxyaabo inay soo saarto fikirro cusub markasta oo maskaxdaada ku mashquulidid inay soo saarto fikirro cusub waa markasta oo maskaxdaada furmayso oo helayso fikrada cusub ku xujay maskaxdaada in ku xir maskaxdaada xujooyin xujadaas oo ah gaariga ka tagay oo ka sii socda indhaha inta isku qabatid waxaad dhahaysaa xagoo gaarigaas intuu sii socda intuu ku jira tilaabo ahaan ku xujay maskaxdaada waxyaa xujooyin si ay u soo saarto waxyaabaha si ay u soo saarto aragtiyo cusub baro oo maskaxdaada bar xirfado cusub nafsi ahaanna u baro xifdi wax walba quraanka buugagta akhridid wax walba isku day inaad xifdidid hal eray ama hal xaraf hal sadar haddaad akhridid isku day inaad xifdidid oo waxyaabo maskaxda soo saar xirfadahan inay xirfado cusub soo saarto oo maskaxda nadiif noqoto waxyaabo ka shaqeyn kara waa inaad wax xifdidid aan ku weydiiyo midda shanaad waa maxay xujooyinka kugu dambeysay ood xaliday ayadana nala wadaag stepka 6 ama habka 6 ayaa ah samayso xiriiro bulsho oo wanaagsan kuwaas oo ka caawi kara in maskaxdaadu ay shaqeyso sababtoo ah maalinkii aad isu imaatiin ama maalinkaad wada hadashiin ood isweydiin su'aalo iyo jawaabo isu celisiin waxaad helaysaa ood ka helaysaa meeshaas su'aalo cusub jawaabahooda inaad keentid aday qasab ugu noqonaysaa saas daraadeed maskaxdaadu way koraysaa xiriirada wanaagsan waxay la macno yihiin maskax caafimaad qabta u tag oo wax la sheekayso waalidiintaada walaalahaada iyo familkaada oo dhan maskaxdaada waxa ku soo dhici doonana ila soo wadaag intaas ka bacdi goormay ahayd markii kugu dambeysay waqti wanaagsan la qaadatay waalidiintaada haddayba nool yihiin walaalahaada ama aad wacday ama ahalkaada iyo asxaabtaada amaba reerka adigu kuu dhisa nala wadaag ayada midda ugu dambeeyda ama toddobaad ama habka ugu dambeeya ayaa ah walbahaarka qaabka lagu xaliyo walbahaarka waxa lagu xaliyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam noo sheegay ilaahay baa noo sheegay in la kaarmayso samarka iyo salaada laakiinse maskaxdaada ka mashquuli inay ku mashquulshaba wax aan dan ugu jirin sida maskaxdaada inaad ku mashquulidid wax dhacay waxba adiga kugu tari mayso laakiin maskaxdaada dad ku mashquulidid halkan siin u gaaraa waxa kuu soo baxay fikrado wanaagsan qaado neef oo breathe samay neefta aad celidid ee soo celisid waxay ka mid tahay waxyaabaha ku siiya firfircoonida iyo maskaxdaadu ay furanto samee qoris maalin walba inaad wax qortid isku day sababtoo haddaad wax qortid maskaxdaadu inay furanto ayadan sidoo kale way imaanaysaa ma isku dayday adigu weliga waxa maskaxdaada ku jira inaad qortid ayadan nala wadaag waxaan joognaa ugu dambeyn waqtigii aan maskaxdeena furi lahayn awoodeennana furo lahayn tallaabadee ayaad bilaabi doontaa tallaabadeedse ka hesh nala wadaag oo faallooyinka nagula wadaag haddaad nagu cusubtaa nagu soo biir haddii aanu noola joogtaan laygta waan dhaqaajisaa waanaan dhiirigelin su-aalaan ka weydiinayaa ma leedaha waqti go-an ood ku seex muxuu yahay heerka hurdadaadu ma u baahan tahay isbeddel maxay yihiin cuntooyinka maskaxdaada u roon iyo noloshaada ee hadda aad cuntid waan ku soo daalanay inaan isdilno oo isreebreebno laakiin aan ku dadaalno inaan isdhiirigelinno oo isdhaqaalaysanno Soomaali dhan iyo dalkooda dhan baan rajaynaya waxa dan noo ah dalko xorooba iyo dadka xorooba salaam